la soo saaray jadwalka horyaalka English Premier League iyagoo kooxo adag isku aadaya. Kulamada horyaalka English Premier League xilli ciyaareedka 2023 ilaa 24 ayaa la soo saaray iyadoo kooxda haysata horyaalka English Premier League ay ku bilaabanayso kooxda horyaalka dhawaan u soo dalaacday ee Burnley. Kulanka ayaa ah mid daafur u ah xilli ciyaareedka Jimcaha August 11. Sheekada ayaa aad u fiicnaan doonta iyadoo tababaraha Burnley iyo halyeegii hore Manchester City Vincent Kompany uu soo dhaweyn doono kooxda ku guuleysatay saddexleyda koob isla markaana uu u ciyaari jiray. Kompany ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee abid heer sare wajahaya kooxdiisa hore Manchester City. Kulanka ugu xiisaha badan ee furitaanka waa midka dhexmari doona kooxaha Chelsea iyo Liverpool. Chelsea ayaa ku martigelin doonta dhigeeda kooxda Liverpool maalinta Axadda bisha August 13. Waxa uu noqon doonaa kulanka ugu horeeya ee tartan rasmi ah. Mauricio Pochettino uu hogaamin doono kooxda Blues. Kulamada toddobaadka furitaanka horyaalka English Premier League Jimcaha 11 August ee sanadka 2023 Burnley iyo Manchester City ayaa wada ciyaari doona maalinta Sabtida ee ku beegan 12 bisha August sanadka 2023. waxaa wada ciyaari doona kooxaha Arsenal, Nottingham Forest, Bournemouth iyo West Ham United, Brighton, Luton Town, Everton, Fulham, Sheffield United, Crystal Palace, Newcastle iyo Aston Villa. Axadda 13 August ee sanadka 2023 waxaa wada ciyaari doona kooxaha Brentford iyo kooxda Spurs, Chelsea iyo Liverpool. Maalinta Isniinta ee ku beegan 14 August ee sanadka 2023 waxaa wada ciyaari doona Manchester United iyo kooxda Wolves. Jadwalkan wuxuu yahay jadwalka furitaanka horyaalka English Premier League iyagoo kulanka furitaanka ee horyaalka English Premier League kulanka uu adag uu yahay kulanka Chelsea iyo kooxda Liverpool dhexmari doona.